madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylic iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ayaa saaka si rasmi ah xadhiga uga jaray kawaanka xoolaha lagu qali doono kaasoo ay fulisay hay'adda lagu magacaabo FAO isla markaana ay maalgelisay wadanka Ingiriiska. furitaanka munaasabadani kadib waxaa xaflad weyn oo loo qabtay ka hadlay madax kala duwan oo kamid ahaayeen wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha, beeraha iyo wasiiro dowlaha madaxtooyada ka waxbarashada, maayirka degmada Burco Barasaabka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madax kale oo aad u tiro badan waxaana ay ka dhawaajeen inuu kawaankani yahay kii ugu casrisanaa ee laga dhiso geyiga Soomaalidu degto, waxaana hadaladoodii kamid ahaa keenistooda qayb weyn ka qaadatay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. waxaa ruuli oo ah madaxa FAO ayaan isna u mahadnaqaynaa. waxa weeye waxqabadka dawladdu waxaa arrintani waa arrin markhaati ka ah. intaa haddii aan salaanta halkaa ku dhaafo waxaan halkan u mahadnaqaynaa maadaama maanta ay tahay inaynu furno kawaankii casriga ahaa ee degmada Burco ay ka hirgelisay hay'adda la yidhaahdo FAO. waxaa nagu waajiba inaan u mahadnaqno oo u mahad celinno fulintooda iyo keenistoodaba qayb weyn ka qaadatay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. waxaa ruuli oo ah madaxa FAO ayaan isna u mahadnaqaynaa. waxa weeye waxqabadka dawladdu waxaa arrintani waa arrin markhaati ka ah. waxaa naga ballana inaanan joogsanin oo intaan waqtigaygu gaadhayo aan horumarkaa wadno oo aan ogtahay waana arrintii uu madaxweynuhu ballan qaaday la wareegno ama xarig ka jarno mashruuc aad u qiimo badan oo ay noo fulisay maartay maalgelinteedana siisay waddanka UK oo ah saaxiibada waaweyn ee caalamku leenahay ayna fulisay hay'adda UN-ka FAO oo aqoon gaar ah u leh kawaanada iyo xanaaneynta xoolaha iyo maartay waxaa kaloo ay mas'uuliyiintaasi dhagax dhigan isla markaana ay xadhiga ka jareen sariibada gaha iyo seero ballaaran oo ku yaala deegaanka Kabadheere. si kastaba haatee waxaa la filayaa in madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigan ballaaran ee uu horkacayo ay ka bixi doonaan magaalada Burco kadib markii ay xadhiga ka jareen mashaariic horumarineed qaarna ay dhagax dhigeen kuwaas oo laga hirgelin doono gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Shaafici Maxamed Ibraahim, shabakada caalamiga ah ee Caalami News, gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.